English vocabulary. Simple English vocabulary. Simple English vocabulary. Af Somali eraya cusub. Ability karti. Able awoodo. Abortion ilmo iska soo ridid. About ku saabsan. Abroad dibadda ama waddanka banaankiisa. Absent maqnaansho. Absolutely dhammaystiran. Abuse xadgudub. Academic tacliinta. Accept aqbal ama aqbalid. Accident shil. Academic. Campaign. Campaign dhammayn. Campaign raacid. Campaign raacid. Accomplish dhammayn. Accurate saxa. Accuse eedayn. Adapt la qabsi. Erayadan waa erayo Ingiliishka oo erayo cusub ah kuwaas oo ka mid ah casharrada maalinlaha aan ku baranayno jilmadaha ama erayada maxaan ku yidhaahdaa new vocabulary-ga ama erayada cusub. Ability waxaan dhahnay karti, waa karti uu qofku awood u leeyahay wixii uu rabay inuu sameeyo. Karti waa wada garanaynaa. Karti macnaha awood dabiici oo Ilaahay siiyo qofka in uu ku qabto wixii uu rabay. Able wuu awoodaa. Tan waxay ku kala duwan yihiin. Tani waa tan able waa waxaad awooddo ood markaas samayn karto ama aad qofka u awooddo ood siin karto. Laakiin tan kore waa xoog iyo adkaysi iyo quwad ay ku xidhan tahay. Abortion. Abortion waxa weeye ilmaha yar ee caloosha ku jira hooyadii oo aysan waqtigiisii la gaadhin uu dhalan lahaa la soo rido. Maxaa la dhahaa? Abortion. Ilmo iska soo ridid ama dhicis ha noqdo. Laakiin abortion inta badan dhicisna wuu noqdaa. Inta badan laakiin waa ilmo iska soo ridid. Inaad isbitaal tagto, dhakhaatiir u tagto ama aad dawo isticmaasho, ilmihii caloosha ku jira aad soo riddo. About ku saabsanaan. Meel heblaayo maxaa war ku saabsan maanta aad haysaa? Wax ku saabsan. About ku saabsan. What about? Bal ka waran ayada. Waa xiriiriye ereygan laba jilmadood isku xidha inta badan. Abroad waxaan dhahaynaa waddan waa dibadda. Dibadda maxaa la dhahaa? Qofkii hadda Afrika ka taga oo waddamada kore aada waxaa la leeyahay hebel dibadda ku maqan yahay. Waxaa dibad noqonaya waddanka aad ku nooshahay wixii bannaanka ka ah ayaa dibad noqonaya. Inkastoo deegaanada qaar dibadda loo yaqaano dayrka la oota wixii bannaanka ka ah. Laakiin sida saxda abroad waa waddanka aad ku nooshahay wixii bannaankiisa ah, bannaanka ka ah. Sida waddamada dariska oo kale. Absent maqnaansho. Waxaa lagu dhahay yesterday you are absent. Shalay waad maqnayd. Where were you? Xageed ku maqnayd? Tusaale waa maqnaansho aad ka maqan tahay goob waqtigii loogu talagalay. Meel mucayana ood ka maqan tahay xilligii loogu talagalay. Absolutely dhammaystiran. It is absolutely waa wax dhammaystiran oon ka laabasho lahayn. Abuse waxa weeye xadgudub. Waa qof ama shaqsi aad kula kacday wax ka baxsan xuquuqda uu leeyahay ama xadgudub ah. Aad dhibaataysay, waa u gacan qaaday, waa aflagaadaysay, mararka qaarkood sigay gashaa iyo wixii dhibaatayn lamid ah. Abuse waa xadgudub. Qof aad xaqiisii iyo xuquuqdiisii ku xadgudubtay noqonaysaa. Taas waa ficil la sameeyey oo qof sameeyey qof kale uu ku sameeyey. Academic waa tacliinta. Tacliin waa wax kasta oo waxbarasho ku saabsan. Weliba waxbarashada maxaa ku yidhaahdaa curriculum dhammaystiran ama manhaj dhammaystiran. Ereyga dabcan curriculum waa English. Maxaan ku yidhaahdaa kan kale ahaa
aan sheegaynana waa isaguna waa carabi aan u malayn. marka af soomaali saxa curriculum. manhaj waa carabi say ila tahay. curriculumna waa waa luqadda ingiliishka. marka ciddii garanaysaa nala wadaagto. curriculum academic wuxuu noqon karaa tacliinta, laakiin waa qaacido la maro. tusaale qur-aanka ilmaha kolkuu baranayo wuxuu ka bilaabaa birabinaas ilaa iyo suuratu faatixa. waa qaacido sida 30 juz ee qur-aanku u samaysan yahay oo kale, ama aayadaha qur-aanka u samaysan yihiin. juz ka bax, juz kala gal, saan oo kaleeto. ama iskuulka 1, 2, 3, 4 ilaa iyo heer jaamacad. waa manhaj ama curriculum dhisan. ciddii af soomaaliku garanaysana waa ka codsanayna inay nala wadaagto. academic waxa lagu yidhaaho af soomaali. accept aqbalid waa ficil ama war lagu sheegay oo aada aqbashay. waa aqbashay, war baa lagu sheegay, waa qaadatay, maxay noqotay? accept aqbalid. waa aqbalay, warka ila timid, waan aqbalay ay noqonaysa aqbalid. accident waa shil maxaa noqon kara? shil waxaa noqon kara tusaalaha ugu fudinta badan waxa shilal ka dhaliya waa wadooyinka baabuurta ama xoolaha maraan, sida dabka iyo biyaha iyo wixii lamida. tusaale 2 gaari oo midba dhanka socdaa wadada, mid haadkiisii ka baxay kii kaleu ku dhacay, dhibaataa ka dhalatay. waa tusaalaha ugu yar. shil gaari, shil dab, maxaanku idhaahdaa shil biyo, wax un accidenti ah oo dhacay. accidenti waa shil, wax dhacay aan si ku talagala u dhicin, laakiin si kadisa u dhacay. maxay noqon? accident. campaign raacid. maxaa la raaci? raacid waxaa weeye saaxiibkaa. tusaalaha ugu yar waxaa weeye saaxiibkaa ku yimaada, muddaas la joogtay, wuxuu ku dhahay xaafadii ma ii raaci. raacid. can you campaign with my home please? fadlan gurigaygii ma ii kaxayn kartaa ama ma ii raaci kartaa? campaign ay noqonaysaa raacid. accomplish shaqo ayaad qof u dirtay, wuu soo dhameeyay. accomplish dhammayn. I completed ama I accomplished the work uu ku dhahay. accomplish shaqadii aad ii dirtay waa soo dhameeyay. I accomplish or I completed. accomplish work. I have done accomplish work. waxaan sameeyey shaqo dhammaystiran ama dhammaysan ayaan sameeyey. accurate sax ah. qof ayaa shaqo u dirtay, si fiican u qabtay shaqadii. marka waxaad tidhi si sax ayaad u qabatay. you have done accurate work. waxaad qabatay shaqo sax ah ayaad qabatay. accuse eedayn. qof ayaa dembi ku tuhuntay ama dembi kaa galay, kadibna waa dacwaysay. maxkamadaad tagtay, waad soo eedaysay. maxaad tidhi? ninkan ayaa xoolahaas iyo xoolahaas iga qaatay ama iga dhacay. maxay noqon? dacweyn, eedayn. dembi laguma cadayn weli, laakiin waa lasoo eedeeyey. markaasoo kale waa markay tusaale booliska qof kolkii lasoo dacweeyo ama maxkamadda looga yeeri ama waa lasoo xiri. adapt la qabsi. maxaa lahaa? tusaale waxaad ka tagtay sida hadda cimilada wadanka u kala duwanta oo kale, meel qabow ayaad ka tagtay, dhul aada u kululaa tagtay. so it's very hard to adapt with that climate. waxaa kugu adkaatay inaad la qabsato cimilada ayada ah, way kugu adag tahay. la qabsi, waxaan la qabsan waaya cimilada. it's very hard to adapt with this environment. it's very hard to adapt with this food. it's very hard to adapt for this culture. dhaqankan inaan la qabsado way u adag yahay. cimiladan inaan la qabsato way u adag tahay. ama cuntadan inaan la qabsado way u adag tahay. adapt waa la qabsi. adapt qofka maxaa la dhihi oo daroogada isticmaala ee la qabsaday jirkiisu? drug addict ay noqona taasi. laakiin adapt waa la qabsi. waxaad la qabsatay. he is actually adapted with the environment.
si fiican uu ula qabsaday shaqada, si fiican uu ula qabsaday. marka ereygan waxaan dhahaynaa la qabsi. la qabsi ayaan dhahaynaa, waa la qabsaday hebel. mar kale haddaan ku celin ability waxaan dhahnay karti ama awood uu qofku leeyahay. able wax aad awoodo ood samayn karto waa iskaag dhawin. abortion waxaan dhahnay waa dhicis, waa ilmo aan shankiisii ku dhalanin. laakiin inta badan ereygan abortion waxaa loo isticmaalaa ilmaha oo aan waqtigii dhalashadiisa gaadhin oo lasoo rido, ama daawaha hooyadu ha isticmaasho ha ku soo rido, ama qalliin ha lagu sameeyo ha laga soo saaro. abortion waa ilmo iska soo ridid. about ku saabsan. I have a good news about your education. waxaan ku hayaa war wanaagsan oo ku saabsan waxbarashadaada. do you have anything is about our school? ma haysaa wax wara oo ku saabsan iskuulkeennii. marka ereygan about waa xidhiidhiye isku xidha laba tudac ama laba jilmadood. haddaan hadda ku dhaha do you have waa phrase. anything is about our Somali government. ma haysaa wax xoga oo la xidhiidha dowladda Soomaaliya ama ku saabsan dowladda Soomaaliya. symbol marka waxaan dhahaynaa about ku saabsanaan. dabcan waan fahmi karaa bay ila tahay. abroad waxaan dhahnay wadanka aad ku nooshaa wixii xuduudkiisa ka baxsan wuxuu noqonayaa dibadda ama abroad. absence maqnaansho xilligii loogu talagalay oo aad ka maqan tahay goobtii lagugu talagalay. absence maqnaansho, ka maqnaansho. absolute dhammaystiran. dhammaystiran waa waxaad u bogtay dabcan inuu dhammaystiran yahay, shaqo dhammaystiran. abuse xadgudub, qof aad sharaftiisa ama nasabkiisa ama cirdigiisa ama xoolihiisa aad ku xadgudubtay oo u gacan dhaaftay. academic tacliinta. ereygan academic waa tacliinta wax la barto. tusaale ahaan idhi, tusaale wax ugu fiican ee la qaata waa qur-aanka. qur-aanku wuxuu ka kooban yahay intaas oo aayadood, suuradood, maxaanku idhaahdaa xisbi ama jus uu ka kooban yahay. macnaha waa dhismo dhan oo dhammaystiran oo maxaanku idhaahdaa ilaahay uu muslimiinta u soo dejiyey si ay isugu maamulaan. laakiin inta badan dadku waa ka leexdeen. marka waa manhaj dhammaystiran oo ilaahay kuma daraadehe lasoo habeeyey. marka ciddii qaadata inay barato damacda qur-aanka, hadday kor ka bilowdo iyo hadday hoos ka bilowdo, qaab loo barto ilaahay sooma. waxaa tusaale labaad ah waxbarashooyinka hadda maadigaa ilmaha koobaada looga bilaaba ilaa ay heer jaamacad uu ka dhameeyo. marka waa manhaj dhisan ama qaacido dhisan oo loogu talagalay in tartiib tartiib qofku u barto. marka kaasaa muxuu noqonayaa academic. dabcan curriculum waa English saan sheegnay. manhajna waa carabi. marka af Soomaali wax lagu dhaho labadan baan u aqaanaa, ma garanayo. ciddii taqaanaa nala wadaagto. accomplish dhammayn. have you completed the work? qofaa shaqo kuu diray markaas awood ku dhahay shaqadii ma dhamaysay. have you completed the work? have you completed the work? shaqadii ma dhamaysay. dhammayn. campaign raacid. raacid maxay noqonaysaa? academic aan dhahna accept. abuse xadgudub baan ku sheegnay. academicna waxaan ku sheegnay manhaj. accept aqbalid. I accept waan aqbalay. xog waxbaa lagu sheegay, lagu soo jeediyay waad qaadatay. accident shil. waxaa weeye shil. tusaale waxaan soo qaadanay laba gaari oo isku dhacday oo dhibaata ka dhalatay ama dhimasho ama dhaawac. accident waa la ficil aan si ku talagala aan loo sameynin laakiin si kadisa ku dhacay. campaign raacid waa tusaale waxaan soo qaadanay qof ayaa wuxuu ku dhahay xaafadaydi ma ii kaxayn kartaa ama ma ii raaci kartaa. saare xilli dambe habeen adoo socda
uu qofka hor imaaday markaasuu ku dhahay waddadan ka cabsanay ma i kaxayn kartaa walaa ma ii raaci kartaa xaafaddi raacid ma ii raaci kartaa xaafaddi ama wuxuu ku dhahay nakeen maanta xaafadayda ii raac maanta waan xaggaasaan ku qoran ka soo qadaynaynaa symbol aan garanay marka campaignkaas aan ku sheegnay accomplish waxaan dhahnay dhammayn have you accomplished the work shaqada ma dhammaysay accurate sax it is accurate way waa sidii ugu habboon ama ugu saxnayd bay tahay shaqada accuse waxaan dhahnay eedayn qof ayaa dambi looga shakiyey waa la dacweeyey marka ama waa la soo eedeeyey adapt la qabsi baan dhahnay cimilo hadday noqoto waxaan tusaale u soo qaadanay qof ka tegay meel qabow oo cimiladeedu qabow tahay kadibna meel kulul tagay marka way ku adkaanaysaa qofkaas inuu durba jirkiisu la qabsado noloshaas iyo cimiladaas cunto aadan cuni jirin haddii aad cunto waqti bay kugu qaadan iyadana inaad la qabsato su-aal maraan dul maraynaa ability waxaan dhahnay karti able awoodo waxaad awoodo abortion ilmo iska soo ridid ama ilmo aan waqtigiisi gaadhin oo caloosha hooyadii laga soo saaray ama about ku saabsan wax ku saabsan xog abroad waddanka aad ku nooshahay banaankiisa tusaale qofka hadda maraykan jiro oo kale ma dhihi kartaa he is living abroad dibadda ayuu ku nool tusaale qof kula socda oo ku cusub meelaha ayaa qof saaxiibka ay ku weydiiyo markaas wuxuu ku dhahay muxuu yahay qofkan he is from abroad wuxuu ka yimid dibadda ayuu ka yimid abroad dibadda camal meeshaad ku nooshahay banaankeeda absence maqnaansho waa qof ka maqan goobtii loogu talagalay xilligii loo cayimay muxuu noqday absence absolutely dhammaystiran waa wax dhammaystiran oon waxba ka dhinayn abuse xadgudub qof maalkiisa xoolihiisa ama sharaftiisa aad ku xadgudubtay camal academic waxaan dhahnay waa tacliin waa naqanaa waa waxbarasho maadi ama diini midkay noqotaba accept aqbalid I accept waan aqbalay waxaad ii sheegtay accident shil waa dhacdo u dhacday si aan loo qorshaynin ama loogu talagelin campaign waxay noqon kartaa qof aad raacdo maxaan ku idhaahdaay oo aad meeshu u socday u raacdo waxaa kaloo noqon kartaa iyadana qof oloola ku jira inaad taageerto oo kale oo taageeradiisa u noqoto oo aad wax la diyaarin ama qof la abaabul la gasho oo kalena way noqotaa campaign accomplish dhammayn shaqa lagu dhiibay markaasaa qofkii wuxuu ku dhahay shaqadii ma dhammaysay have you accomplished the work shaqadii ma dhammaysay dhammayn accurate waxaan dhahaynaa sax he did the work accurately si sax ayuu shaqadii u qabtay accuse eedayn qof laga shakiyey dambi looga shakiyey kadibna la eedeeyey oo la dacweeyey adabti la qabsi ama cunto ha noqoto ama environmentii tusaale waxaanu soo qaadanay cimilo kala duwan ama cunto kala duwan ayaanu soo qaadanay iyadan intaasaa ku daynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa ka codsanaynaa qof walba oo saxaabtanada ka mid a in uu la wadaago saaxiibkii la wadaag haddii aad adigu wax ka faa'iido waad ku mahadsan tahay haddii kale qofkaad isleedahay waxbuu ka faa'iidi karaa cashirkan la wadaag sida ardayda oo kaleeto waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu